dagaal qaraar oo afar jiha ah ayaa saaka ka dhacay deegaanka Dacwaley ee degmada Xarshin ee gobolka Afdheer. halkaas ayaana la soo warinayaa in qasaarihii ugu xooganaa dagaalkaas uu ka dhashay, sidoo kalena guryo la gubay, xoolo ku xirnaa xirooyinkoodana sidoo kale dab la qabadsiiyay. halkii ay ku jireen xaalad xun ayaa ka taagan deegaankaasi Dacwaley iyo sidoo kale qabaalaha oo iyagana markaasi kamid ah tuulo hoos tagta deegaankaas. soo dhawaada wararka ugu dambeeyay halkaasi iyo dagaalka oo sii xoogeystay, isgaarsiintii oo la jaray ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. cumar guxayaan ahay, haddii uu muuqaalka soo gaaro share gareeya, saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladan aragtida noogula wadaaga. mar kale soo dhawaada saaxiibayaal, aynu ku bilowno. subaxnimadii hore ee saaka weerar xoogan oo waliba afar jiha ah ayaa la sheegay in lagu qaaday deegaanka Dacwaley, deegaan ama tuulo duleedka ka ah. halkaas ayaana la sheegay in dagaal xoogan uu ka qarxay oo maalinimadii jimcaha ahayd ee lasoo dhaafay ee toddobaadkii hore ayaa sidani oo kale dagaal xoogan uu halkaasi uga qarxay. dagaalka saaka hiirtii hore waxaa la sheegay inay soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa liyu boolice oo la sheegay inay ku labisnaayeen dhar shacab si aanan loo garan, waa sida xogaha qaar aynu ku helinay. waxaana la tilmaamay inay adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. dagaal xoogan oo weliba aad u qaraar ayaana halkaasi ka socda oo hub noocyadiisa kala duwan leh la isku adeegsanayo. jugta culus ayaa laga maqlayaa tuulooyin dhowr ah oo kamid ah deegaankaasi Dacwaley ee gobolkaasi Afdheer, gaar ahaana degmada Xarshin, iyadoo dadka deegaanka la sheegay inay iska difaaceen oo weliba la tilmaamay in hub culus iyagana ay adeegsanayaan maadaama dagaalka uu aad u xoogan yahay, haddana aanan la ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. wararka halkaasi ka imaanaya waxa ay sheegayaan in guryo dab la qabadsiiyay oo ay dad shacab lahaayeen, sidoo kalena xoolo ku jiray xiriyahoodana dab la qabadsiiyay oo halkaas ay ku holceen, waa sida xoguhu ay tilmaamayaan. inkastoo aan wararkaas la xaqiijin karin, dagaalka ayaana sii socda, madaafiicyo dhowr ah ayaana la isku adeegsanayaa. dadka qaartiis waa ay ka baxeen deegaankaasi Dacwaley ee degmada Xarshin ee gobolkaasi Afdheer. dadka deegaanka maalmihii lasoo dhaafay ayaa la sheegay in halkaas ay ku sugnaayeen oo nabadoono ka kala socda dhinacyada dagaalamay ee dowlad deegaanka Soomaalida, ciidamadii liyu boolice ee ka socday oo weliba qayb kamid ah beelihii ay u dagaalamayeen iyo ciidamadan ama dableydan hubaysan oo iyagana kamid ah dadka deegaanka Dacwaley oo heshiis la doonayay in la dhexdhigo ayaa ugu dambeyn guul dareystay. wixii xilligaasi ka dambeeyay maalinimadii shalay ilaa iyo saacadihii lasoo dhaafayna la tilmaamay in la isku afahmi waayey gogol tiile gudaha deegaankaasi Dacwaley. taasi ayaana keentay in saaka hiirtii hore dagaal afar jiha ah uu ka qarxo deegaanka Dacwaley ee gobolka Afdheer, gaar ahaana degmada Xarshin. wararka halka ka imaanay waxa ay sheegayaan in isgaarsiintii la jaray oo dowlad deegaanka Soomaalidu ay jareen, ilaa iyo haddana aanan la ogaan karin khasaaraha rasmiga ah, maadaama halkaas la sheegayo inay kasoo baxayaan warar kala duwan oo dadka deegaanka markaas halkaas ku sugan ay toobanayaan. xogaha qaar ee la helayo ayaa sheegaya in isgaarsiinta sababta ugu weyn ee loo jaray ay tahay in dhinacyadu aysan gurmad helin, laakiin marka loo fiiriyo ciidamada liyu boolice ee la tilmaamay in weerarkan soo qaadeen gurmad xoogan oo daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa uga imaanayo degmada Dhagax Buur ee isla degmadaas ama isla gobolkaas, iyadoona wararka qaar ee la helayo ay tilmaamayaan in xaaladdu hadda ay tahay mid cakiran, dhinacyadana aanan la kala heli karin wax khasaaraha ee ka dhashay dagaalkaas. dhaawacyadii markaasi ka dhashay dagaalka ayaana loo kala qaadayaa tuulooyinkii deegaanada kale ee ka agdhow ee dhinacyadan ay kasoo kala jeedaan, sidoo kalena gurmadyada xoogan ay ka kala helayaan